السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسور هذا مركله iyo channelkeena YouTube-ka ee FPL Soomaali. Waxaan igu ahdaa Cabdul Cali oo la socodsiinaya xubin kale oo uga hadlayno Fantasy Premier League 2021-2022. Saaxiibayaal waxay noo soo gudbiyay isbicaareedkii sagaalaad oo kulamo muhiim ah oo xiiso badan ay dhaceen. Maamulayaal badanna ay dhibco fiican ka heleen oo waxa uu ahaa isbicaareedkii ugu loogu dhibco badnaa oo maamulayaal badan ay meel fiican iska arkeen. isbicaareedka horteena ah ee tobnaadna sidoo kale ay muujinayaan maamulayaasha waxaa jira kulamo xiiso badan oo ay ka mid yihiin sida kulanka Manchester United iyo Tottenham, sida kulanka Arsenal iyo Leicester. kulamadaas ayaa jiro bal mawduuca waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay noqon doonaan iyo kulamadaasi qaab ciyaareedka maamulayaasha iyo sida ay u kala xulin doonaan ciyaartoyda iyo ciyaaraanada farqiga ah iyo ugu dambeyn oo aan ka hadlayno kabtanada iyo doorashada ee maamulayaasha ay sameyn doonaan. saaxiibayaal waxaan xasuusinayaa inaad kusoo biirtaan channelkeena YouTube-ka ee FPL Soomaali, dhinacyada Facebook-ga, Instagram-ka iyo Twitter-kana aad noogu soo biirtaan. sidoo kale waxaa jira WhatsApp group aan sameynay oo aad sidoo kale kusoo biiri kartid. haddii aan marka u gudubno kulamada la ciyaari doono si guud, kulanka ugu soo horeeya maalinta Sabtida ah waa kulanka ay isku arki doonaan garoonka King Power Stadium kooxaha Leicester City iyo Arsenal. Burnley ayaa iyadana martigelinaysa kooxda Brentford. Liverpool ayaa martigelinaysa kooxda Brighton. Manchester City ayaa arki doonta kooxda Crystal Palace. Newcastle United iyo Chelsea ayaa sidoo kale iska hor imaan doona. Watford iyo Southampton ayaa is arki doona. Spurs iyo Manchester United ayaa kulmi doona. maalinta Axadna waxaa ciyaari doona kooxaha Norwich iyo Leeds United, Aston Villa iyo West Ham, iyo maalinta Isniinta ah oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Wolves iyo Everton. haddii aan marka fiirino kulamada sida gaarka ah maamulayaasha ay dhibco uga fiirsan karaan ama la isdhihi karo waxaa ka soo bixi doona guulo muhiim ah oo maamulayaasha ay ku farxi doonaan waxaa ka mid ah kulanka ugu soo horeeya ee kooxaha ay isku arki doonaan Leicester iyo Arsenal. labadaasi kooxood haddii aad xasuustaan xilli ciyaareedka la soo dhaafay dhibcaha midba guriga kale ayuu kaga soo badiyey. kulankii ugu dambeeyey oo ka dhacay King Power Stadium, Arsenal ayaa 3-0 ku soo badisay. kulankii kale ee qaybtii hore ee xilli ciyaareedka hore dhacayna Leicester ayaa guriga Arsenal ku soo badisay. marka kulankanina inkastoo hadda kooxda Leicester City ee hadda qaab ciyaareedkeeda uu ahaa mid labada dhinacba ah oo qayb hoos u dhacay sare u kacba leh, sidoo kalena Arsenal sidaas oo kale oo hadda ilaa iyo hadda 6 kulan oo xiriir ah aan laga badinin dhinaca marka la isku dardaro tartamada oo dhan oo tartamada Carabao Cup-ka iyo Premier League. qaab ciyaareedkeedu labada kooxoodba weli waxaad moodaa in uusan aad u fadhin, laakiin ciyaaryahanada hadda qaab ciyaareedka fiican ku jira ee hadda foomka ah waxaa ka mid ah Smith Rowe oo qiimihiisu sare u kacay oo 5.5 u gaaray. maamulayaal badan durbaba ay soo iibsanayaan maadaama isbuuc ciyaareedka la soo dhaafay uu 13 dhibcood keenay. ciyaaryahankaas ayaa ugu badnaa hadda iibsashada marka la dhaho waa ninka ugu badan. waxaa ka horeeya oo kaliya dhinaca Arsenal markaan fiirino Bukayo Saka ayaa ka horeeya oo dhinaca haysashada marka la dhaho, iyo kabtanka kooxda Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang oo asna sidoo kale ah ciyaaryahan fiican oo maamulayaasha isbuuc ciyaareedkii la soo dhaafayna 6 dhibcood u keenay. laakiin markaa fiirisid qaab ciyaareedkiisa kulamada dibadda iyo kulamada uu ka ciyaarayo Emirates isku mid ma ahan. laakiin waxaa laga yaabaa oo suurtagal ay tahay maadaama tababar Arteta uu ku soo laabtay shaxda caadiga ah ee 4-4-2 uu ku soo laabtay, taasoo Aubameyang iyo Lacazette ay hadda ka hor waagi uu joogay tababar Unai Emery ay si fiican Arsenal ay dhibco fiican uga heshay. marka tababaraha waxaa suuragal ah inuu labadan isla ciyaarsiiyo mar haddii Aubameyang iyo Lacazette isla ciyaarsiiyana labadooda inta isla ciyaarayeen ilaa 15 gool ay isla dhalayeen marka oo iska caawiyeen. marka waxaa suuragal ah marka in ay mar kale ay faa'iido u noqoto Aubameyang oo xilli ciyaareedkii 2019 22 gool ay u suura gashay inuu keeno. marka dhinacaas Arsenal waa noocaas. dhinaca kale Leicester City ciyaaryahanka weerarka ee weeraryahanada hadda ugu fiican ee foomka ah waa Jamie Vardy oo maamulayaal badanna ay haystaan oo isbuuc ciyaareedkii la soo dhaafay waxa uu ahaa maamulayaasha ciyaaryahanka ay u soo iibsada badnaan ayuu ahaa, laakiin hal dhibic oo kaliya ayuu keenay oo qaybtii hore oo kaliya ayuu ciyaaray. marka waxaa suuragal ah kulankan inuu gool ka dhaliyo maadaama inta badan kooxda Arsenal marka lagu hormaado uu gool ku leeyahay. ciyaaraanka kale ee farqiga noqon kara markaan fiirino kooxda Leicester City waa ninka lagu magacaabo James Maddison. kulamada hadda koobabka ayuu ciyaarayay oo Europa League iyo Carling Cup-ka labadaba ciyaarayay. marka farqigiisa iyo qaabka inuu ku soo laaban karo kooxda aad ay u muuqataa oo saameyn ayuu leeyahay.
dhinacyadaas ayaa ugu muhiimsan dhinaca laba kulankaas ay isku arki doonaan kooxaha Leicester City iyo Arsenal. kulanka kale ee maamulayaasha ay dhibcaha ka keeni karaan oo la iska sii og yahay inay dhibcaha ka imaanayaan waa kulanka kooxda Liverpool ay ku martigelinayso kooxda Brighton. kooxda Liverpool waxaan ognahay inay 5-0 uga badisay kooxda Manchester United oo taariikh xun ay dhabarka u saartay kooxda Manchester United. laakiin kooxda Brighton oo iyadana dhinaceeda qaab ciyaareed fiican hadda ku bilaabatay horyaalka, laakiin kulankii hadda ugu dambeeyay ay la soo ciyaareen kooxda Manchester City 4-0 looga badiyay. waxaad moodaa in ay mar kale kooxda Liverpoolna ay sidaas oo kale ku samayn karto. Liverpool qaab ciyaareedkeedu hadda waa uu furfuran yahay, waxaa moodaa weeraryahanada inay isfahmeen. waxaa suuragal ah Klopp in uu isku badbedelo ciyaaryahanadaas Jota iyo Mane oo ah labada ugu badan ee ciyaaryahanada looga haysada badan yahay dhinaca Liverpool markaa fiirisid. xagga Mohamed Salah iyo waa lama taabtaan isaga oo dhinac walbo wuxuu ka yahay lama taabtaan oo kooxda ayuu hogaaminayaa. xagga daafaca waa Alexander Arnold oo hadda toos ugu soo laabtay, dhaawacina ka soo laabtay, ilaa iyo Robertson oo asna soo laabtay. marka dhinacaas Liverpool waxay u muuqataa in ay meeshaasi maamulayaal badan ay dhibco ka heli karaan. xagga Brighton ciyaaraan Mobay ayaa ahaa farqigii ugu fiican, isagoo ah nin dhiblow ah oo dhinaca gool tegista xagga haybanon haysashada iyo bun abuurista qadka dhexe ee kooxda Brighton oo aad u fiican darteed waxaa suuragala in marar badan uu diilinta goosha u tago oo halkaasna dhibco ama maamulayaal badan ugu soo celiyo. ciyaaryahanka Sanchez wuxuu ka mid yahay goolhayaha kooxda Brighton haysashada markii la dhaho ciyaaryahanada loogu haysashada badan yahay ayuu ka mid yahay. haddii aan fiirno markaa kulanka kale ee la ciyaari doono maalin Sabtida ah waa Manchester City iyo Crystal Palace. Crystal Palace kulankeeda hadda ugu dambeeyay ee barbardhac ay la soo gashay kooxda Newcastle United waxa ay samaysay jaanis abuurista marka la dhaho ilaa iyo 2.6 ayay samaysay. marka waa koox marka la dhaho weerarkeeda ilaa iyo qadkeeda dhexe uu aad iskugu xiran yahay oo aad moodo in tababar Patrick Vieira uu isla helay. laakiin Manchester City wax loo dhiga ma ahan oo ilaa hadda kooxda Manchester City sida ay u cusleed waa iska muuqataa way caddahay oo koox hadda marka la kooxaha waaweyn kooxaha ugu fiican ay ku jirta adduunyada xilligan hadda la joogo. marka kooxda Manchester City ciyaaryahannadeeda kala ah Phil Foden waa doorka ugu fiican oo hadda maamulaha uu aad u aaminay oo tababar Pep Guardiola uu aad u aaminay oo ilaa iyo labada kulamada hadda ugu dambeeyayna uu kusoo bilaabayay. kulankii hadda ugu dambeeyayna 18 dhibcood keenay oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay kulankii kooxda Brighton ay iska hor imaadeen. halkaas markaa fiirisid xagga kale waa Bernardo Silva asna ka mid ah ciyaaryahanada ugu fiican. Gundogan wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada farqiga ah iyo De Bruyne asna wuxuu ka mid yahay dadka ku soo laaban kara inay xataa kabtanka lagu aamino ku soo laaban kara. kulanka kalena waa kooxda Chelsea oo u martinaysa kooxda Newcastle. kooxda Newcastle qaab ciyaareedkeedu weli ma wanaagsana inkastoo ay iska direen ninkii ahaa Steve Bruce kooxdana ay gashay maamul cusub ay yeelatay weli laakiinse looma magacaabin tababaro cusub. marka taasi weli waxay muujinaysaa in kooxda Newcastle ay weli furan tahay oo kulankii hadda ugu dambeeyay ay la ciyaartay kooxda Crystal Palace qaab ciyaareedkooda wax isbedel saas kama muuqanin oo koox hadda la dhihi karo wax bay keenaysaa kama muuqanin. kooxda Chelsea oo ay wajahaysana 7-0 ay ku soo badisay kulanka hadda ugu dambeeyay. ciyaaryahan Mason Mount wuxuu dhaliyay hat-trick. ciyaaryahanka aan waxba fiican aan ka keenin kulankaasi waa Kai Havertz, laakiin la filayo inuu kulanka wax ka keeni doono oo xitaa kabtanka lagu aamini karo. Kai Havertz maadaama ay maqan yihiin labada ciyaaryahan Timo Werner iyo Lukaku waa doorka number 9 dadban ee hadda Chelsea ay haysto. marka kulankaasi waxa uu noqon karaa kulan ay maamulayaasha ay dhibco ka keenaan. ciyaaryahan Kovacic oo qiimihiisu hadda sare u kacayo wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada qiimuhu uu jaban yahay laakiin dhibcaha keenaya oo hadda maamulayaasha ay dhibcaha fiican ay kaga tashan karaan. halka kulanka kale ee maamulayaasha ay fiirin karaan waa kulanka ay isaga hor imaanayaan kooxaha Spurs ama Tottenham iyo kooxda Manchester United. Manchester United xaaladeedii waan ognahay 5-0 lagu soo badiyay. kooxdan Tottenham lafteeda 1-0 lagu soo badiyay oo West Ham ay ku soo badisay ciyaareedkii la soo dhaafay. laakiin waxyaaba la yaab kala waxay ahayd in kooxda Tottenham
ay markii saddexaad oo yani xilli ciyaareedka intuu socday ah aysan qaybta dambe ciyaarta ay goolsha ku tuurin maxay ahayd ama on target aysan samaynin oo goolhayaha aysan gaarsiin banooni taasi oo aad loola yaabay oo u muuqata mid oo aad xanuun u leh sababtoo ah ciyaaryahanada ay Tottenham haysato markaa fiirisid iyo shabaqa banooni goolhayaha banooni gaarsiinin macnaha wax aad la yaab u leh waaye tababare Nuno Espirito Santo shaqo ayaa u taala in uu ciyaaryahanadiisa uu yani dhinaca hal abuurka iyo markii loo dhaho wax soo saarkooda uu wax ka bedelo xataa qaab ciyaareedka noqoto formationka uu ku galaya noqoto yani inuu saameyn ku yeesho oo uu wax ka bedelo oo ku qasban yahay oo wadada guushana uu ku soo laabto dhinaca Manchester United ciyaaryahanada sida Cristiano Ronaldo oo maamulayaasha aad iskaga iibinayeen laakiin haddana ah kabtan ku-xigeenkii xilli ciyaareedka isbuuc ciyaareedka lasoo dhaafay ugu badnaa la saartay kabtanka welina kooxda Manchester United qaab ciyaareedkeedii kulamada dibadda ay ku soo ciyaaraysa aad u fiicnaa xilli ciyaareedkan iyo xilli ciyaareedka lasoo dhaafay inkastoo laga soo jabay oo ay kooxda Leicester City ay kaga badisay 4-2 kulankii hadda ugu dambeeyay ee dibadda ay ku soo ciyaarto laakiin weli waxaad moodaa in Manchester United cadaadis uu saaran yahay tababaraheeda Ole Gunnar Solskjaer uu rabo inuu mar kale ismuujiyo inkastoo hadda la xaqiijiyay in maamulka sare ee kooxda Manchester United ay tababaraha uu u sii joogi doono marka kooxda Manchester United waa ayagana lafteeda dhinaceeda inay soo muujiso u baahantay marka ciyaaryahanada doorarka fiican noqon kara oo maamulayaasha ay dhibco ka keeni karaan dabcan ciyaaryahan Greenwood iyo Cristiano Ronaldo iyo Cavani haddii lagu soo bilaabo waxay noqon karaan doorar aad iyo aad u caawiyo oo dhibcana ka keena kulankii hadda kulamada soo arkeen Cavani gool ay ku soo dhaliyay marka waxaa kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Pogba kulankii hadda lasoo dhaafay ee Liverpool ay isku arkeen Manchester United laakiin Pogba booskiisa waxaa jooga oo markii hore bedel ugu jiray Van de Beek haddii lagu soo bilaabo Van de Beek waa isna wuxuu rabaa inuu furfuro oo fursadan Janis kale oo isku soo bandhiga ay u tahay haddii Van de Beek la helo wuxuu noqon karaa door farqi ah oo meel fiican kaga soo baxo ciyaaryahanada Tottenham markaa fiirino ugu caansan marka la haysashada waa Kane iyo Son iyo xagga daafacashada oo Reguilon uu ka mid yahay inta badan dhanka laga haysto marka kuwaasna haddii aad haysatid toddobaadkan gaar ahaan Son dhibco ayaa laga filan karaa toddobaadkan maalinta axadda ah kulamada la ciyaari doono kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka isku arki doonaan kooxaha Aston Villa iyo West Ham qaab ciyaareedkoodu aad u wanaagsan yahay oo kulankii hadda Carabao Cup-ka waxay ka soo reebtay kooxda Manchester City oo Real ay ku soo reebtay halka dhinaca Aston Villa markii aad fiirisid ilaa hadda 3 kulan oo xiriir ah ayaa laga soo badiyay oo waxaad moodaa in muddo ay u dambeysay in 3 kulan oo xiriir laga badiyo kooxda Aston Villa marka dhinaca West Ham ay moodaa marka in ciyaaryahanada ugu wanaagsan xitaa Mikel Antonio toddobaadkan waxaa la dhihi karaa kabtanka ugu fiican waaye oo la saaran karo Benrahma iyo ciyaaraanka Jarrod Bowen ayaa ayagana dhinaca qadka dhex markaa fiirisid xoogaga ugu adag ee dhinacaas ka suuragalka ah waaye dhinaca daafacashada markaa fiirisid ciyaaryahan Zuma iyo Ogbonna laba ciyaaryahan oo madaxa aad ugu fiican waaye oo kooxda Aston Villa halkaasna waxay ka mid tahay kooxaha dhibaatada goolasha laga keeno koornada iyo waxyaabahan frikigta ee serviceka loo yaqaano xagga culayska la kulanta marka fursad ay ka tahay halkaasi oo Ogbonna iyo ciyaaryahanka Zuma waxay dhib gaarsiin karaan kooxda Aston Villa qaab ciyaareedkeeda dhinaca weeraryahanada iyo hal-abuurkooda aad iyo aad waxaa moodaa Majin iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo weerarka Ings ilaa hadda waxaa marka hore uu isla ciyaarayay Watkins ayuu la ciyaarayay oo laba tababaraha wuxuu ciyaarayay laba weeraryahan asagoo 3 difaac 5 dhax sidaas u ciyaarayay marka taasi waxaad moodaa inaysan u shaqaynaynin waxaa suuragal marka labadaas midkood inuu hadda go'aankiisa dib u fiiriyo oo bal uu tijaabiyo dhinac kale oo uu wax ka keeni karo tababarahaasna shaqo ayaa u taala oo meeshaas in uu wax ka keeno weeraryahanadiisa inuu si fiican u isticmaalo ciyaaryahan Buendia oo lagu soo bedeshay Grealish weli si fiican tayadiisii lagu yaqaanay xilli ciyaareedkii uu la joogay kooxda Norwich City ee Premier League oo dhinaca caawinta aad ugu fiicnaa weli taas muusan soo bandhigin marka ninkaas xitaa weli waxa uu baahan yahay in shax fiican oo wax ku keeni kara in la ciyaarsiiyo kulanka kale ee la ciyaari doona maalinta axadda ah waa oo maamulayaashana ay isdhihi karaan dhibcaha ku jira waa kulanka ay isku arki doonaan kooxaha Norwich City
iyo kooxda Leeds. Norwich City horyaalka ay ugu hooseysaa ilaa haddana kulan wax guul ah maysan gaarin inay barbarac kooxo kale la gasho mooyee. Marka dhinaca Leeds lafteeda waa ilaa hadda hal kulan oo kaliya ay badiyaan oo culaysaad kala duwan ayaa saaran oo Leeds tii hadda xilli ciyaareedka la soo dhaafay ciyaaraysay ma aha Leeds hadda ciyaaraysa oo isbedel badan ayaa ka muuqda. Inkastoo ay dhaawacyo ay u sabab u tahay oo ay dhinacyo badan ay macnaha saameeyeen, haddana Leeds kulankan wuxuu noqon karaa kulan ay ku xijin karto kulankii hadda ugu dambeeyay oo halka ay la gashay kooxda Wolves. ciyaaryahan Rodrigo ayaa goolka barbarac u dhaliyay, marka waxaa laga yaabaa in bilow fiican uu noqdo ay ku soo kabato. kooxda Norwich City ilaa 22 gool ayaa laga dhaliyay xilli ciyaareedka intuu socday. kooxda Leeds Unitedna ciyaaryahankeeda Bamford ayaa suuragal inuu soo laabto oo dhinaca gool dhalinta ku fiicnaa. Rafinha laftiisa waxa suuragal kulankan inuu soo laabto, wuxuuna noqon karaa door ay maamulayaasha ay kabtan saartaan. waxaa kaloo kabtan la saaran karaa oo isleeyahay kulankan oo isna xitaa aad u fiican waa Rodrigo oo hadda booskiisa lama taabtaan u noqday maadaama uu maqan yahay Bamford oo shaki uu ku jiro. xitaa soo laabashadiisa waa suuragal inuu soo laabto, laakiin weli aad iyo aad warkiisa uma soo cadaanin. xaggaas waa kulankan Harrison asna waa farqi kale oo isna kooxda Leeds ka iman kara. marka Leeds haddii aad ciyaaryahanno ka haysatid toddobaadkan waxay u muuqdaan kuwo wax ka keeni kara. kulanka ugu dambeeya maalinta Isniinta la ciyaari doono waa Wolves iyo kooxda Everton. Wolves ciyaaryahannadeeda xagga daafaca ayaa inta badan maamulayaasha ay ka haystaan sida Marcel Kanakudi ay inta badan ka haystaan maamulayaasha. marka dhinacaas weerarka markaa fiirisid ciyaaryahanka Koreanka Hwang Chang iyo Jimenez ayaa ka mid ah. dhinaca kooxda Everton qaab ciyaareedkeeda aad ay u wanaagsanaa oo laakiin dibadda markaa fiirisid, laakiin hadda qaybta oo waxa ugu darsantay dhinaca kulamada ay ku ciyaarto garoonkeeda. ciyaaryahan Townsend oo ka mid ahaa ciyaaryahanada loogu soo iibsashada badnaa isbuuc ciyaareedkii sagaalaad ee hadda naga dhamaaday labaad ayuu ahaa ee loogu soo iibsashada badnaa. ciyaaryahankaasina waa uu u ciyaarayaa kooxda Everton. waxaa suuragal inuu soo laabto Dominic Calvert-Lewin oo isna soo laabashadiisa aad iyo aad suuragal u tahay inuu soo laabto. intaas ayaa kulamadaas ayaa ugu muhiimsan oo la ciyaari doona. kulamada ciyaaryahanada farqiga ay ka soo bixi karaan waa sida kulanka Southampton iyo isku arki doonaan, kulanka kooxda Watford ay isku arki doonaan. Southampton waxa uu ciyaaraya ciyaaryahanka hadda qiimihiisa uu jaban yahay ee Liverpool lagu magacaabo 4.1 waa daafac 4.4 ayuu qiimihiisa marayaa. waa doorarka ugu fiican ee la soo iibsan karo toddobaadkan. maadaama kooxda Watford ay hadda kulanka hadda ugu dambeeyay ay 5-2 kaga soo baxay kooxda Everton, ciyaaryahan Joshua King oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay tababare Claudio Ranieri waxaad moodaa in uu ciyaaryahanadaas isfahmayaan oo suurtagal tahay inuu wax ka soo saaro. Sarr oo asna ka mid ahaa kuwa maamulayaasha aad ku iibsanayeen ciyaareedii la soo dhaafay qaab ciyaareed fiican soo muujiyay ilaa 15 dhibcood xitaa mar keenay, isna wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada laga soo qaadan karo. kulankaas ay isku arki doonaan kooxaha Watford iyo Southampton. kulanka Burnley iyo Brentford islaftiisa wuxuu ka mid yahay kulamada maamulayaasha ay dhibco ka heli karaan oo xagga Burnley waxaad moodaa in xogaha awoodeeda ay hadda aad u hooseyso marka loo barbar dhigo kooxda Brentford oo qaab ciyaareed fiican horyaalka ku bilowday. waa markii ugu horeysay ee kooxda Brentford ee horyaalka Premier League ay ciyaarayso. kooxda Brentford waxa iyo dhinaca weeraryahanada markaa fiirisid Ivan Toney ayaa ka mid ah oo xataa qiimihiisa uu sare u kacayay oo isbedel uu ka muuqdo. Mbeumo ciyaaryahanada oo qadka dhexe aadka loo iibsanayay ayuu ka mid ahaa oo farqiga ah. daafacada Pinnock ayaa ka mid ah oo dhinacaasi iyo goolhayahooda Raya oo ilaa hadda qiimo fiican iyo weliba dhibco fiican keenayo. markaa fiirino markaa ciyaaryahanada la isdhihi karo toddobaadkan si gaar ah ee loo fiirin karaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka Mason Mount oo ka hor imaanaya kooxda Newcastle oo awoodeeda aad u hooseyso. ciyaaryahankaas oo kulankii hadda ugu dambeeyay 3 soo dhaliyay oo sidoo kalena caawin sameeyay. ciyaaryahankaas ayaa ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan xagga Chelsea markaa fiirisid. ciyaaryahan Kai Havertz waxa uu ka mid yahay doorarka dhibcaha fiican laga filayo. Phil Foden sidoo kale waxa uu ka hor imaanaya kooxda Crystal Palace, isna wuxuu ka mid yahay doorarka maamulayaasha ay si gaar ah dhibco uga fiirsan karaan. haddii aan fiirino markaa doorashada kabtanka oo iyadana ah mid ay
maamulayaasha ay mar walba ku kala baxaan tusaale ahaan hadda markaa fiirsateed anigoo kale hadda usbuuc ciyaareedka lasoo dhaafay ama inta uusan Saalax ciyaarin waxaan haystay 22 dhibcood haystay laakiin Saalax markuu ciyaaray Saalax kaliya wuxuu keenay kabtan uu ahaa wuxuu keenay dhibco gaaraya 24 dhibcood markii uu dhufto 48 ayuu keenay marka marka kabtanada waa waxa lagu kala baxo haddii kabtanka uu si fiican kugu ciyaaro markaas toddobaadkaas waa u qabtaa kabtanada ugu fiican toddobaadkan waa dabcan Saalax wuxuu ka mid yahay doorarka ugu waaweyn ee kabtanka la saaran karo toddobaadkan maadaama uu ka hor imaanayo kooxda Brighton ay ku hor imaanayaan waa hogaamiyaha ilaa hadda xilli ciyaareedkan Premier League 10 gool ayuu dhaliyay marka doorkiisa waa lama taabtaan waxa kale oo ku xiga Mikel Antonio waan ognahay يعني كلن كادو قدام بيحتاج جول كي جوش أي أسود عليه كوحدة ويست هام يونايتد أو توتنهام هل يبرو بيسن مركا دور كيسة أصلا لما تبتان كاي هافرتز كم ذا هو هذا السوق قادم كرو كابتن كان على سارن كرو إن عيارين سان أو مانشستر يونايتد كم كوري معنا يا أصلا فتيسة وحاول نقول كرا كابتن فرقي نقول كرا أو ما ملياشة أي قادم كرو سيدو كله كابتن هذا فرقي وحا suuragala inuu noqdo oo ciyaarta uu ka hor imaanayo ciyaaryahan Rafinha ayaan ka wadaa wuxuu ka hor imaanaya kooxda Norwich City Rafinha waa ciyaaryahan dhinaca weerarkiisa iyo aad uga fiican marka Rodrigo oo la ciyaari doono naftiisa wuxuu ku noqon karaa ciyaaryahan farqi ah oo kabtan la saaran karo saaxiibayaal intaas ayaan kusoo koobayaa inta aan ka tagay oo isleedihiin waxba ay soo kordhinayaan ama ciyaaryahan farqi ah jiro commentiga noogu soo qora aad ay u mahadsantihiin haddii aad weli subscribe saarin fadlan subscribe saar sidoo kale dhinacyada Facebook Instagram iyo Twitter noogu soo biir aad ay u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh